والله ورئيسك إيدسنا وديابيسا ولا الحالة تقول قدام بيسن يد جاهز سؤال بدنا كجواب ونلش إذا تعلك كمذا وحي والله قي كبرت بكسر فريسك بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ويا نحمل عدد أيام كابا وحنا هاي هالأمر الصوماليات تاريخ بدن ملهي أو تاريخ دوا إسكا كوبان تهاي هذه سؤال اللي يودي وجود قراءة هذا ما نسكو عرفتين هبل لا يضحي أنا غير ما نسكو عركي دكسو هو صار حدكته إريد أقول ريان بوجي قل رقعتنا وحي أحيان من هو يدا إريك هذا يا هو يدا وقت هدي سيدي بنودي إلا هير كنا أنكو سو قارئ بس هو يمكن ويتنا وقت يتعالك وبنايين أو سنة كلا صورة في لبا كنت 8 iyo 2019 labadaas sano bay suugaanteedu aad xagga jacaylka u badnaayeen laakiin hadda waxaad moodaa dhanka nolosha inay aad ugu janjeeraan jacaylkuna noloshu ka mid yahay oo noloshu buu hoos imanaya nolosha laftirkeedii waa marka la sii kala qaado ballaaranayso oo dhinacyo badan soo galaysa marka aan wax culinay waxay ku xiran tahay marka xaaladda ku jiro ama waxaan dareemayo ama wax cariyo oo igu sababa inaan eriyo sameeyo way ugu adag tahay in eriyo ama dareen aan haynin inaan israahdo wax ka sameeyo inta badan waxa inta badan aan bulshada u soo gudbiyaa ama aan wax ka iraahdo in waxa weeye aniga wax itaabanaya waxaan aad u jecelahay wax akhriska inaan wax akhriyo baan aad u jecelahay qoraalka sidoo kale aad baan u jecelahay inaan wax qoro waa labada aan leeyahay labada balwadood aan leeyahay waa labada ciyaaraha ma xiiseeyo filimaantana ma daawado sidoo kale ma garan karo waxyaabo kale oo inta dhaafsiisan oo aan inta badan ku mashquulo ama aan waqtigeyga siiyo kale way jiraan abwaano ilaahay caafimaad ha siiyo oo cimriga ha u dheereeyay abwaana aan suugaantooda aad u akhri jiray ama xiiseen jiray oo hadraawi oo kale kamid yahay ilaahay caafimaad siiyo cimrigana ha u siyaadiyo fanaaniinta sidoo kale fanaaniinta aan u jeclaa waxa kamid ah khadra daahir ciga aad baa aan u jeclaa hiba nuura sidoo kalena haweenka aad baan u jeclaa cumar dhoolana ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye isagana aad baa aan fankiisa aan u jeclaa anigu ma ihi dadka siyaasadda aadka ugu faraha dhuudhuuban leh ama maanta hadii wax laga weydiiyo ka jawaabi kara arrimaha siyaasadda dibadda ka jooga laakiin su'aasha waxa ka jawaabi kara arrimaha siyaasadda dadka gudaha ugu jira waa su'aal fiican haddii aan isku dayo waa run saad sheegtay walaal waxa jirta inta badan ay suugaanteedu mararka qaar aan aad ugu kaftamo ama qofku dacaadeeyo ama anigu aan jacaylka qayb qosla aan ka doorto ama nolosha qayb qosla aan ka doorto inta badan ereyada inta badan waxa aan u xushaa waxa weeye maadaama ay dadku intooda badan ay isaga baahan yihiin waqtiyada qaar ama shaqo ku jiraan ama laga soo rawaxo ay isaga baahan yihiin marka ay baraha bulshada soo galaan waxay ku qoslaan waxa laga yaabaa maanta dhan inay arkaan siyaasad warar siyaasadeed waxa laga yaabaa inay arkaan dilal waxa laga yaabaa inay arkaan dhibaatooyin fara badan oo kale marka waxa aan kaas aan uga dan leeyahay waxa weeye in aniguna aanan ka mid noqon dadyoga waxyaabaha negative-ka soo gudbiya mararka qaar in aan soo gudbiyo waxyaabo positive ah oo qofkii ka qoslin kara uu sidoo ugu ilaabi karo qoraal aniga iga horeeyay oo kale ah oo ama naxdin ahaa ama murugo ahaa ama waxyaabo kale ahaa waxa aan aad u jecelahay halaburkayga inaan inta ka sii ballaadhiyo waxaan jecelahay in luuqado badan oo dunida kamid ah inuu loo turjumi karo inaan anigaygaas aan hadda isku dayo xitaa aan ku jira dadaalkeeda in aan isku dayo inaan luuqado kale aan u bedelo hadda halaburkayga insha Allah tacaala wana rajaynayaa in luuqado badan uu ku bixi doono insha Allah dad inta ka badan aan yeelan doono bulshada Soomaaliyeed ee ugu xiran bulshooyin kale oo soo labeeya saddexeeya afreeya insha Allah tacaala inay imaan doonaan dareen aan suugaan ka qoro ama aan wax ku cabiro waxaan ugu jecelahay dareen aniga itaabanaya gaar ahaan waalidka dareenkoodan aad u jecelahay inaan wax ka iraahdo hooyo kale inaan wax ka sameeyo aad baan aan u jecelahay haddii ay ii suuro gali lahayd ama ay macquul ahaan lahayd dhammaan waxa aan suugaan leeyahay kaliya waxaan kaga hadli lahaa waalidka waxaan kaga hadli lahaa haweenka
waxaan kaga hadli lahaa dadka baahan waxaan ugu hadli lahaa dadka uu waqtiga iyo duruufaha nolosha ay ciileen wax kale uga ma faa'iideysteen waana rajaynayaa hadda intooda ugu badan inaan iyaga kaga hadlo xiriirku noocay badan yahay sidiisaba xiriir waalid baa jira xiriir waxa jira saaxiibtinimo waxa jira xiriir laba qof oo kala jinsi ah laba dhadig isku keena oo bartu jacaylku ka bilaabo qof marka aad la sameynayso xiriir waxyaabo badan dadka qaar xiriirada way iska galaan dadka qaar la shuruudaha hor yaala dabcan waxaana la yiraahdaa qofka markasta uu noloshaada soo galo hadii aad heshiis ku wada gashaan qofkan waxbu necab yahay adigu waxba necab tahay qofkan waxbu jecel yahay adigu waxba jeceshahay qofkaas hadii aad ka wada hadashaan waxyaabaha noocaasi oo kala ah oo aad heshiis wada gashaan waxyaabo badan xiriirkaasi ma noqdo inta badan mid fashilma waayo labadii qof waxa ay kala dhigteen heshiis qofkan maanta wuxuu og yahay wuxuu ka xanaaqayay qofkan kalena wuxuu og yahay qofkan wixii dhibaya tusaale ahaan oo kale xidhiidho kala jirto oo si degdeg ah lagu bilaabo wax kasta oo si degdeg ah lagu bilaabaana si degdeg inta badan u dhamaadaan hadii aan jacaylka u sii guda galo oo aan isiraahdo wax ka sii dhanka jacaylka jacaylku waa dareen qurux badan marka haysato qof kula fahmaya nolosha marka aad haysato qofka jacayl marka aad haysato qof aad jeceshahay oo aad ku dareemayso inaad la hadasho markasta farxad aad ku dareemayso qofku siinaya dhiirigelin ku dhiirigelinaya koodhanaya maanta waxaasaad samaysay wax qurux badan aad samaysay hore u soco qof aad adiguna sidoo kale aad markasta aad ugu jirto booska walaalnimo booska waalidnimo oo kale booska saaxiibtinimo aad meel kasta ugu jirto xiriirada noocaasi waa xiriirada runtii ay dadka intooda badan ay ku riyoodaan inay helaan laakiin dadka in yar oo farakutirsa xiriirada noocaas nasiib u yeesho inay helaan dadka inta ka soo hadhaana inta badan dhaawacyo fara badan baa kala kulmaan qofkii ay jeclaayeen sidoo kale marka aad qof jeceshahay ee aad weedana iyana waa xaalad kale oo aad u xanuun badan suugaan badan oo aan ka sameeyno way jirtaa xaaladaha noocaas in aad qof jecel aad weedo dareenka ay leedahay waa wax yani aan ku cabiray laakiin aanan yani hadal ahaan aanan ku soo gudbin karin maanta marka waxaan idin leeyahay jacaylku waa nolosha ereyada waxa kamid ah iga daa xasuusaha xayiraada iga qaad iikeen xorriyadii aan xiriir sameystay maxaa la igu ka xidhay ee aan xaggaagiyo u rabaa xogtaadun adba iima xiistide xubbigeenu sawkii door hore xijaabtee lagu daray xabaalaha muxuskaan talow ahay maanaan xisaabtamin mise xiisahaaga xarka goostay wiilyahow qayrkay xisaable farxad bay xadreeyaan anigana xayaatadu xaladii ma laha badan xabsi caashiqleeyaan ka hayaa xil weynoo xoghayntiisa aana qofku maaha xaaraan waase lagala xaalaa qofka aad xagataan qof xoreeyo maankoo nabarada qalbiga xalay xaq dhowro waan heli annakuma xumaynina waqti bayna kala hada allah ayaa qofku xalaal ku xurmeeyo oo wacan xuralcayn dhalaal badan xila kaaga yeelo ku xasila adduunyada maasadan halka ku duubaya maanta waa maasadan hadal ah maasadani waxay si guud uga waramaysaa nolosha marka aanu leenahay waa way ballaaran tahay laakiin inta yareen ka soo qaatay waxay ka turjumaysaa yani mararka qaar iyadoo adigoo ah qof geesiya inaad waxyaabaha qaar aad u qaadanayso si aad kaliya dantaada u gaadho maasadan waxay ku bilaamaysaa sida dadkoo nacaysugu ogeyn mar baan qaataa dulmiga mar baan doqoniga tiyo nolosha matalaada baal waayaha u noqdaa daciif dan baan leeyahay mar baan dadnimo wacan muujiya dembiga qof kaleeta galo degteeda mar baan sudhaa dul qaataa oon socdaa mar baan damacayga iyo dareenkaygaba qarshaa ayaamahan daalka badan mar baan dalbadaa adayg waqtiga daba luudiyaa duruufta mar baan nacaa daryeelka mar baan tabaa ifkaba doorkaan mudnaa mar baan doonaa wacnaan dunida maalmaan karahaa daqiiqada waan farxaa dharaaraan diif mutaa la doodaa nolosha baas anoo degay baan arkaa mar baan wadka door bidaa haddana degdeg uga noqdaa shaydaankana dayriyaa xumaantana daadiyaa digriga rabbi xoojiyaa dunida maalmaan karhaa
daqiiqado waan farxaa dharaaraan diif mutaa la doodaa nolosha baas anoo degay baan arkaa mar baan noolaha darsaa dabeecada kala baxaa anoo daacada marbay qodxiya dabin ee dhigaan anoo dirqi maar ku helay mar baan dahab baayacaa anoo dacsiibsan karin mar baan la bistaydayaa dushayda dhalaaliya